Serious outswinger. Maguire, Kane! Rifles it into the... Because City are on a different plane. De Bruyne, Haaland! Hurried back by McTominay! Red letter day! He'll get another go, and he'll twist away from Ake, and Rashford scores! De Bruyne! Benny hit by Saka, what a goal! What a wonderful, wonderful goal! Bruno Fernandes, beautiful! Bukayo Saka, Arsenal ahead! Rashford has rifled it in! aynu ku sii soconno isla kooxda Arsenal ayaa rabtaa in ay bedesho dabeecadii ahayd in laga hortago waxyaabihii guuldarrada ku keenay ee ahaa in aan loo hayn ciyaartoy haddii uu dhaawac uu ka galo bedelkiisa. kooxda Arsenal ayaa waxay iska dhistay dhexda iyo difaaca kadib markii uu ka dhaawacmay Saliba oo lugta uu ku soo gaaray dhaawac. ciyaartoyga la yiraahdo Timber oo ay doonayaan inay soo gataan kaasi oo hadda la joogo kooxda Ajax. sidoo kale waxa ay raadin baas ay ku hayaan Arsenal inay isku hesho Rice Sefesmin oo isna PSV u dheela. sidoo kale waa wiil Dyer oo 22 gool u dhaliyay 10 jeerna baasay kaasoo sababay in gool ay ku dhashaan. haddaba ma suurtagelaysaa inay isku hesho Arsenal saddexdan laacib ee kala ah Douglas Rice, Safin Simonston iyo Timber oo isagoo qaranka Jarmalka khadka dhexe uga ciyaara. waa hagaag aynu ku sii soconno wararka ciyaareed. tababare Erik Haak ayaa calaamadeystay 4 ciyaartoy oo khadka dhexe ah oo uu kala xulan doono haddii uu ku guuldareysto saxiixa xidiga England ee ay sida weyn u doonayaan Mason Mount kaasi oo Chelsea ay soo diiday 3 dalab ay ka gudbisay. Manchester United ayaa iyadu 55 milyan oo geni u dhigtay 24 jirkan reer England balse Bulls ayaa waxa ay dalbanaysaa 65 milyan oo geni inay ku qaadato oo ay 58 milyan qaadan laayihiin. 7 kalena ku xidhayaan bandhigiisa taasi oo ay Manchester United ay markaasi ka diideen tahay. Ten Hag oo laacibkan tababare uga soo noqday Ajax oo uu sanad ama ahaan uu kula joogay ayaa waxa uu doonayaa inuu helo waxana uu ka ordayaa in ay ku dhacdo sidii sanadkii hore oo Frankie oo isagu markaasi bartilmaameedka koowaad u ahaa uu diiday inuu ka tago Barcelona. tababaraha reer Netherlands ayaa waxa uu ka sii fikirayaa xaalad kasta oo iman karta isagoo maamulka kooxda u gudbiyay 4 ciyaartoy oo bedelkiisa uu doonayo haddii ay waayaan Mason Mount. waa tahay dhegeystayaal daawadayaal intaasi ayaan ku soo afeerinaa barnaamijka ciyaaraha oo aan ka soo gudbin jirnay channelkan. inta barnaamijka la mid ah ku kulmi doono saasi nabadgelyo.